Asalaamu calaykum soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub waxaan rajeynayaa maalintaada inay kuu tahay maalin qurux badan. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa xaqiiqooyin ku aadan dalka Bakistan, dal dhaca qaaradda Aasiya. Ayaan muuqaalka kusoo qaadan doonaa. Haddii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqataa, soo dhawaaw, subscribe noo saar, gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddaa familka ka tirsan tahayna like noo saar, asxaabtaadana u sii share gareeyo. Soo dhawaada. Dalka Bakistan waa dal dhaca koonfurta Aasiya, waxaana la yiraahdaa waa wadanka 33aad ee adduunka ugu badka weyne. Dadkiisa ilaa iyo waxay gaaraan 212 milyan, 212.2 milyan ay gaaraan dadkiisa. Waxaan lahaa waa wadanka labaad ama bulshada labaad ee ugu badan adduunka ee muslimiinta ah ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin. Wadankan wuxuu xuduud la leeyahay Hindiya, Afghanistan, Iran iyo China. Muxuu caan ku yahay? Walow hadda ay sii dabar go'ayso, dalkan wuxuu caan ku yahay in geela ay si qurux badan ugu xiraan markay rabaan inay suuqa geeyaan oo ay iib geeyaan markay rabaan. Waxay dhaqan u lahaan jireen markooda hore inay geela qurxiyaan oo dufta geela ay si farshaxan ahaan oo qurux badan ay u xiraan. taas ay caan ku yihiin. Midda labaad ee caanka ku yihiin waxaa kamid ah labiskooda oo ah qamiiskan Bakistaaniga dumarka iyo ragaba labadaba ka siman yihiin, halka dumarka ay ka qaataan mid la qurxiyo oo kalar iyo wax loo yeelay oo la qurxiyay, xagga nimankana ay ka yihiin kalar liish ah. Ma lahan dhar kale oo dhaqameed u ah wadan ahaan. Waa qamiiskaas Bakistaaniga iyo surwaalkiisa weyn. Dumarka waxa u soo dhaweeyo shaal yar ee garbaha saartaan markay u baahdaan madaxa saaraan. Midda kale dalkan wuxuu caan ku yahay raqsiga ama qobka ciyaarka ayuu caan ku yahay. Calankiisa waxaa laga soo qaatay calankii dowladda Cusmaaniyiinta, maadaama ay ahayd dowladda ugu dambeysay ee lahaayeen Islaamka ayaa laga soo qaatay calankooda. Waxay ka bedeleen kalarka ay ka dhigeen kalarka cagaarka dhaaga ah ayay ka dhigeen. Dalkan waxaa la yiraahdaa waa dalka ugu horeeyay ee Islaam ah ee yeesha hubka nuclear-ka. Wuxuu xiriir wanaagsan uu kala dhaxeeyaa dalka Turkiga, maadaama Turkiga uu yahay wadanka ugu horeeyay ee soo dhaweeyay markii uu aasmay dalkan Bakistan. Waxaa la yiraahdaa markuu dalkan Bakistan aasmay, dalka ugu horeeyay uu ka helay kaalmo siyaasadeed iyo soo dhaweyn wuxuu ahaa dalka Turkiga. Dhaqan ahaan dalkan waxaa dadkiisa u dhaqan ah inay leeyihiin baabuur la qurxiyay, kalar qurux badan loo sameeyay oo marka wadanka aadiyo magaalooyinka iyo laamiyada marisid waxaa ku arkaysaa baabuur la soo qurxiyay. Dhaqankoodana wuxuu yahay ama qofka inuu xayawaano qurux badan oo asiga uu jecel yahay uu gaarigiisa ku midabeeyo, ama asxaabtiisa familkiisii kalar waxaas ah inuu baabuurkiisa ku midabeeyo. Waxaa arkaysaa baabuur asaga dhan wada sharxan oo aad leedahay meelna kama banaana. Dhaqan ahaan waxay leeyihiin xagga guurka, marka guurka la diyaarinayo arrimaha guriga iyo guriga dadka arooska ay degi lahaayeen waxaa sharci ahaan ah inay qurxiso gabadha dadkeeda ama ayada ay dhiibaan kharashka gurigaas lagu qurxin lahaa. Ninkan ma soo galayo ilaa uu lacagtii cida uu celiyaa. Waa dhaqan aad u la yaab badan. Ma ahan sharcigooda inay gabadha intay dhiibto hadhowto uu ninka yimaado saas lagu wada noolahay. Waa gabadha dhiibayso guriga waa la sii qurxinaa, waa la sii hagaajinaa. Hadhowti markuu yimaado asaga guriga soo gala lama ogolo, kabaha waa kasoo tagaa asagoo dacs la'aan oo maaha. Waa inuu dhiibaa lacagtii gurigan ku baxday oo dhammaystiran inuu dhiibo, markaas kadib waa loo ogolaanaa inuu galo. Bulsho walba adduunka ku nool waxay leeyihiin dhaqan kuwadan u saxsan. Dhaqaale ahaan dalka Bakistan waxaa la lahaa waa wadanka 26aad ee dhaqaale ahaan adduunka. Waa wadan soo koraya somehow si marka la fiirsho wadamada soo koraya ku jira. Dhaqaalihiisana walow xagga marka laga hadlayo meediyaha uusan shacbiyad fiican uusan lahaynin oo warar sax ah aan laga gudbin, laakiin qofka markuu tago ayuu ogaan karaa waxa wadanka ka jiro. Wax meediyaha sheegay miyaa sax ah mise
waxa meediyaha sheegaya ayaa khaldan. Qofku wuxuu sheegi karaa markuu dalka gudihiisa uu galo caadi ahaan wadanka waa wadan dhisan oo horumarsan laakiin ma ahan sida meediyaha uu ka sheegayo. Wadankan wuxuu leeyahay xeebo iyo maxaa la yiraahdaa meelo qurux badan oo loo dalxiis tago laakiin siyaasadiisa oo adag dartiis dowladda ma ogolo ama uma fasaxdo uma fududeyso dadka dalxiisayaasha ah inay wadanka soo galaan ee dalxiisaan maadaama wadanku uu xaalad siyaasadeed iyo xaalad dagaalo oo ku jiro. ciidan ahaan waxaa la yiraahdaa wadankan waa wadanka 17aad adduunka ee ugu adag ciidankiisa. waa wadanka 17aad la dhahaa wayna adag yihiin sababtoo ah waa wadan ku hubeysan hubka nukliyeerka wala wadamo hubka nukliyeerka ku hubeysan hadana ciidan ahaan isna ay jiraan hadana wadankan waa masha Allah inta xad wadan dhisan ciidankiisa dhisan yihiin hubkiisa uu maxaa la yiraahdaa ku hubeysan yahay ayuu yahay. Wadankan waxaa la dhahaa waa wadanka adduunka ugu badan ee soo saara banooniga kubadda cagta ee lagu ciyaaro wadanka ugu badan uu soo saaro waxaa ku yaal warshado badan oo soo saaro banooniga. dalka Pakistan ma lagu soo koobi karay intaan xaqiiqooyinka ku saabsan ama waxyaalaha caadi ahaan wadankan uu caanka ku yahay inta lagu soo koobi karo waa insha Allah laakiin waxaan isku dayeynaa in ilaa ay xad aan soo koobno isku dayeynaa. wadankan wuxuu muran xuduudo muran ah kala dhaxeeya dalalka sida leeyahay dalka Hindiya oo inta badan ay xataa dhacdaa in mararka qaar ay dagaal ku dhex maraan gobolkan la yiraahdo Kashmir ee inta badan ay isku haystaan siyaasad ahaan oo qayb xataa gobolkan Kashmir qayb wuxuu xuduud kale leeyahay China qayb wuxuu xuduud kale leeyahay Bangladesh laakiin inta badan siyaasad ahaan markii la yiraahdo labada dal ee badan inta badan dagaalku ka dhex dhacay waa dalka Pakistan iyo Hindiya walow labada dalna ay yihiin dad haysta hubka nukliyeerka. marka xurguf siyaasadeed way jirtaa oo Pakistan dowladda ay leedahay laakiin tan ugu badan ee maanta soo laabata waa tan Hindiya ay leedahay oo sababeyso dhulkan Kashmirta ay isku haystaan. waana wadan soo koraayo oo waxa leeyahay wadanka 26aad adduunka ee ugu maxaa la dhahaa korinshaha fiican xagga koritaanka dhaqaalihiisa uu kaalinta 26aad uu ku jiro wadamada soo koraayo uu ku jiro waana wadan horumarsan oo xaggiisa waxbarashadiisa oo kale iska fiican tahay oo waxa jirta xataa Soomaali badan oo waxbarasho u aada wadankaas oo xaggiisa waxbarashadiisa oo kale iska fiican tahay ayaa lagu tiriyaa inuu yahay. marka insha Allah muuqaalka intaan ku soo gabagabeynayna hadii ay tahay markii kugu horeysay soo booqata subscribe nusarkan walaalkana furo si fiidiyoada cusub ku soo gaaraan hadii aad familka ka tirsan tahayna like nusar asxaabtaada noo sii share gareyso dhawaada.